وإن سلام أصحابته وصلوا إلى القناة كانوا فضلا هذا سبسكرايب كرينين هايلو بينا سبسكرايب كريسي القناة كم notification turn on إن شاء الله الفيديو هذا مو لسعتي halkan waxaan kusoo bandhigaynaa wax yar detail yar tusaale ahaan videogii hore insha Allah soo dhignay haddaad xasuusato waxaanu sheegnay inuu prediction ina ay sanadkan cusub oo kale wax ka bedelaan ku darsiga saas bay ku sheegeen laakiin wax cadaan ma ahayn qof si cad u sheegay ma jirin laakiin ugu dambeyn way soo dhigeen si cadna way u dhaheen wayna shaaciyeen ayagoo sheegaya insha Allah screen kan soo dhigay meelahan iyagoo sheegaya qaabka ay wax bedelayaan wuxuu sheegayaa in foreigner-ka hal mar guarantee lagu siiyo short term residence waxay isticmaalaan tourism-ka isticmaal short term residence la siiyo kale inuusan mar labaad qaadanaynin iyagoo rule isticmaalaya marka waxa uu sheegayaa inuu qofku hadii uu qaadanayo in case of absence of reason yani ay tahay sababta loogu diiday absence of reason yani inuu reason la'aan meesha u joogo aan reason la'aan oo kale hadda soo waxay sheegayaan in general hadda waa la bixin karaa like waa macquul oo kale laakiin qofkan waxa la siinayaa hadii kaleeto uu haysto arrin cadayn u ah wax sababta uu joogayo marka hadda dadka Soomaalida oo kale boqolkiiba haddaan dhahno percentage dadka jooga u jooga insaaniyadka ama magangalka wadanka u jooga waxay dhan yihiin meelaha 30% kama badna dadka soo aroodhan inta badan waa dad hadii aan 20% ka saaro waxbarashada iyo aan u qaybiyo shaqada because dadka aad wax u barta Soomaalida ma aha waxaad kuugu soo haraya meesha dadka Soomaalida ee wadanka iskaga nool marka touristina ku nool dadkaas oo kale hadduu qofku dhaay tourist uu joogaa aad bay u bixi doonaan marka waa arin khalis ku dad badan khaasatan Soomaaliya ba ahaata laakiin dadka badan bay u dhaxaysaa dad badan ma wadanka ka bixi doona waa laga yaabaa Soomaaliya hadda inagu war ahaan waxaan uma sheegin because meelaha newska ayaad ka heli kartaa ayagoo detail laakiin hadda Soomaaliya waxaa jirta sanadihii u dambeeyay oo kale waxaa jirta in wadanka Turkiga aad u soo aqbalay dadka aadna uu soo u keenay wadankiisa marka tusaalahan intan ciriiri bay sameeyay kartaa marka ani ma garanay backup-ka ay leeyihiin laakiin waxaan aaminsanahay touristigu inay waxa koowaad dhaqaalaha wadankan ka helo laakiin haddii touristiga uu joojiyo yani backup kale uu leeyahay meel kale isku huban baa jirta so maybe dadkan ku batay inuu basaaro xal u arka way dhici kartaa so insha Allah waxaan rajaynayaa inay arintan wax ka bedelaan laakiin bilahan hore way la eegana ayagu soo dhaxda xataa ayagu waxay leeyihiin waan eegana because wax la huba maaha in arintan hoos dhax bay keeni kartaa laakiin ugu dambeyn waa rajo insha Allah marka dadka Soomaaliyeed arinta ogeyn oo kale amaba markii hore hadal aan ku arinta caadi bay hadda u soo shacbaxaysa because sanadka bilowgiis wax badan kama harin December maanta waa 6 wax saas kama harin 24 cisho meelahaas ka bacdi sharciga uu bilaabay inta ka horeysa aad apply garanayso uma malaynaa in sharciga kugu soo deynayaan laakiin wuxuu sharciga bilow yahay inta kale waxaa jirta reason inaad sii raadisid hadii aad qofte wadanka hadii aad sabab kale u sii joogayso oo kale marka dadka badan inta badan u joogay in wadanka sii dhaafaan iyo waxaas aad culays ugu noqon doonta marka because qofkii insaaniyadka waxa shuruudaha lagu siinayo qofka bay ilaahay laakiin touristiga qofka waa la iska siin jiray aad oo yani u fududeed ayadoon baxta la siinay laakiin aad u fududeed meelaha barkood so marka touristiga qofka hadii loo diido ma garanayo because qofku shaqo ma qaadanayo ardayna waa inaad arday tahay so wadanka joogistiisa aad dad badan oo ka bixi baa jira wadanka insha Allah khayr Allah ka dhigo waxaa jirta marka arintaas inaad fadlan aad share garaysid dad badan soo arkaan subscribe gareena channelka waxay ku yardarayaan arinta waxay ku soo yardareen oo kaleeta in qofkan yani markii hore waxay ahayd sida hadalka lagu sheegay totally baan kansalnay laakiin hadda waxay sheegayaan inuu wali backup yar jiro qofka wax la siin karo like backup qofkan in reason-ka yani reason-kaas ay ku soo dareen reason qofka inuu ku joogayo kale soo tourist qaadan karo reason-ka waxyaalo badan ma noqon kara so I wish inaysan xumaanin because hatta reason-ko laga diidana waa mid kale waa dib kale yani oo reason adoo la yimaado reason-ka in laga diido oo arin kale oo dhici karto marka ayadna dibkeeda wadataa so insha Allah dadka wadanka Turkiga ku nool Soomaalida khaasatan wajahaysa arintan oo kale insha Allah talaabo kaga soo hortagaysan inaad qaadaan intuusan wali sharci u bilaabanin idinkana meel aysan adag in ka gaarin baan ayaan insha Allah idin kula talinayaa dhamaan dadka kale wadanka raba inay yimaadaan inay sharciyan la haystaan insha Allah waxbarashadaas iyo shaqadaas dadka u imaanaya ayaga mar walba dhinacooda waa iska caadi dadka shaqada iyo dadka iyo waxbarashada arintan lama xiriirto marka insha Allah dadka caafimaadka oo kale in maalinta caafimaadku ay saa ugu dhamaato ama uu dhakhtarku fasaxo oo kale wadanka inay ka baxaan bas kaga qasbanaanayaan so marka waxaa jirta ay ku dareen sidoo kale qofkan in mar la siinayo marka tusaale in mar lagu siinayo waa guaranteed bay dhahayaan
tusaalahaan waddanka timaado oo kale horta mar waa lagu siin laakiin marka labaad weeyaan wax la diidan yahay haddii aan reason aad ku joogto aadan haysanin so insha allah waxaan rajeynayaa arrintaas inaysan saameyn lahayn is arag dambe